Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fanka iyo suugaantu waa qayb ka mid ah dhaqanka bulshada, waana qayb ka mid ah hagaha bulshada oo lagu hagi karo bulsho, lagu dhaliili karo waxyaabo fara badan, sidoo kalena la isku weydaarsan karo waxyaabo aqoon ku saabsan iyo hal abuurnimo. Fanka iyo suugaantu waa qayb ka mid ah bulshada dhaqankeeda, balse ka Soomaali ahaan waxaa sii lumaya oo marba meesha ka baxaya heerkii uu taagnaa fanka iyo suugaanta, kaasi oo ka mid ahaa kaabayaal dhaqan oo heer sare ah, balse hadda dhaqanka socda iyo sidoo kale fanka haatan jira waxa uu khatar ku yahay diinta iyo dhaqanka bulshada. ka Soomaali ahaan waxaa haatan socda wax aanu dhagahaagu xamili karin, erayo aad u malaynaysid in bannaanka laga soo qabtay kadibna muusig la saaray. Erayada waa mid la dhuuxi karo, fanku waa mid murti ay ku jirto oo lagala bixi karo hal abuurnimo, fahan iyo sidoo kale in wax lagu dhaliili karo oo lagaga soo horjeesan karo. Fanka Soomaalida ee haatan waa mid u eeg balaayo meel kale ka timid oo aan la mahadin karin. Markii ay sii faafeen baraha bulshada, waxaa meesha ka baxay wax walba oo murti oo sax ahaa oo la qaadan karo, waxaana isku soo haray wax uu qofku doonayo kaliya inuu ka soo caanbaxo oo haba yaraatee uusan jirin wax lagu magacaabi karo fan iyo suugaan. Suugaantu waa qayb ka mid ah dhaqanka bulshada, waana qayb ka mid ah hagayaasha bulshada. Dadkeenii hore ee lagu yaqaanay fanka iyo suugaanta waxay qayb lixaad ka qaateen madadaalada bulshada, waxay qayb ka qaateen hal abuurnimada bulshada iyo in ay u tilmaamaan dhaqanada iyo halka ay ka taagan yihiin inaysan ku xadgudbin diinta iyo dhaqanka. Balse hataa midka socda ee dhaqanka la xiriira waxa uu marayaa in laga tallaabsaday gebi ahaan oo uusan jirin haba yaraatee xishood. Fanaaniintii hore ee qaadi jirtay murtida heesaha waxay ku qotomeen erayo micno leh oo wax lagu dhaliili karo, waxna lagu jeclaan karo, sidoo kalena lagala bixi karo hal abuurnimo iyo erayo ku saabsan afka Soomaaliga oo murti ay ku duugan tahay, kuwaasi oo waxtar u lahaa bulshada dhexdeeda. Laakiin hadda waa erayo laga keenay af qalaad iyo sidoo kale af Soomaali la bahdilay oo la isku daray kadibna laga dhigay hees. Heestaasi ma jirto wax macno oo ay leedahay, ma sheegi karo in ay dad u haystaan inay macno leedahay, haba yaraatee waa wax uusan dhagahaagu qaadi karin. Waxayna aad ugu sii faafaysaa baraha bulshada, waxaanad moodaa inay bulshadu xiisaynayso, laakiin waxaa looga falcelinayaa siyaabo kala duwan. Fanka haatan socda waxa uu yahay in laga sheekeeyo sariirta. Haddaba kaasi muxuu faa'iido leeyahay? Ma waxaa loo baahan yahay wax ka sheekeynaya sariirta, mise waxaa loo baahan yahay wax lagu jeclaan karo, waxna lagu dhaliili karo, waxna lagala bixi karo oo murti ah? Afka Soomaaligu waa uu sii baaba'aya, waana lumayaa. Erayadu markay ka baxaan fanka iyo suugaanta ma jirto cid kale oo kaydin karta. Xataa haddii dowladdu isku daydo, waxa baabiinaya waa afka lagu murtiyeynayo fanka. Mana jirto qaab wax looga qaban karo oo haatan muuqata. Sidoo kale Xasan Aadan Samatar, fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed, waxa uu yidhi curyaanka bacaga looma waayine waxaa caynkaa loo yidhi kuwa cararaya ladan inay ku cimro qaataan ee caashaqa ha baayicin. Erayada dhandhankooda iyo murtida ku duugan waa mid uu fahmi karo qof walba oo aqli Ilaahay siiyey, laakiin haddii aad tahay bulshada dambe waxaad u baahan tahay waxoogaa koobiya inaad cabtid oo aad qaboojisid maskaxda si aad u fahantid midhaha iyo erayada halkay ka yimaadeen iyo waxaa looga jeedo. Laakiin bulshada haatan waxaad moodaa inay usoo cabatumayaan wax walba oo khaldan iyo wax walba oo saxsan, ama in wixii saxda ahaa loo arko wax laga yimid oo yacni qarni hore la isticmaali jiray. Laakiin waa in si weyn looga fiirsado oraahaha iyo erayada khatarta ku ah bulshada. Haddaba waxaa haatan socda annagu yaabnae, bal waxaynu su'aalo ka weydiin doonaa bahda fanka iyo suugaanta in ay noo sharaxaan erayadan iyo waxan laga sheekaynayo ee fankii lagu bedelay halka ay ka keeneen, maadaama iyagu yihiin fanaaniin ama markaasi abwaano hal abuur wax curin kara oo markaasi la wadaagi kara bulshada. Dabcan intausan abwaanku sameynin waxa uu markaasi ka fikirayo, waxa uu inta badan qoraa dhacdooyin iyo sheekooyin kuwaasi oo la isku
hal abuurayo ama la isku geynayo ugu dambayna laga soo saarayo erayo ama weedho iyo erayo isku lifaaqan oo markaasi ay ka muuqato in tacab la geliyey kadibna bulshada saas loola wadaago ama jacayl ha ku saabsanaato ama wadani heestaasi ahaato ama umuuro kaloo dhaliileed ba ahaatee in ay markaasi noqoto mid aan anshaxa burburinaynin oo aan dadka u horseedaynin dhaqan darro iyo in dadka dhexdooda ay ka noqdaan waxyaabo aad looga xishoon jiray caadi tusaale ahaan hees dhowaan soo baxday oo baraha bulshada aad laisula dhex marayay ma rabno inaan waxyaabahaas reaction ka bixinno laakiin xaqiiqada iyo waxa ay huwan tahay heestaasi waa mid fawdo ah fawdo waxaan ka wadnaa in heestaas ay midhaheeda ku jiraan arrimo aanan halkan laga sheegi karin oo ku saabsan dhinacaya sariirta haddaba taas macnaheedu waa yacni wax khaldan oo bulshada lagu dhex faafinayo haddaba waxaan kula talin lahayn fanaaniinta haatan in ay dib u eegaan taariikhdooda iyo asalkooda iyo inay u fiirsadaan bulshadoodu iyo waxay uga baahan tahay aysan u hoggaansamin fiis wax lagu raadinayo iyo wax lagu raadinayo caanimo waan dareemi karnaa haa in caanimo lagu raadinayo arrinkan laakiin waa meelka dhac dhaqan iyo diin waana meelka dhac bulsho oo inagu soo fool leh oo ay suurtagal tahay inay saameyn weyn ku yeelato jiilalkeena dambe